caalamka uga qayb qaataan arrimaha siyaasadda iyo soo noqoshada waddankoodii 24 sannadood baabaaha in lagu dhiirigeliyo waa golo loogu talagalay in qof kasta oo Soomaaliya ra'yigiisa wanaagsan umadiisa u gudbiyo wararka lagu kala qaato waxba lagu kala qaato waxaa golahan 1960 noogu diyaar ah oo nagala soo qayb galay halkana barnaamijkan naga qayb qaadanaya aan ku waraysanayna afayeenka jabada OLF oo jabada xoreynta dalka Soomaaliya ee gumaysato Ethiopia Saadaal Media ayaa website-ka kala qaybiya dhammaanba warfaafinta Soomaaliyeed ee caalamka u gudbisa golaha kan waraysiyada iyo fikradaha kala duwan ee la isku weydaarsado waxaa inoogu diyaar inoo qaadaya Adeer Jaamac aadi kala baxo hadda golaha tihiin afayeenka iyo Adeer Jaamac aad baa u mahadsantahay dhagood afhayeenka ONLF oo horena aynu codkiisa u maqalay ayaa nala jooga waa Cadaani Hiirmooge afhayeen may maqlaysaa maxaad hortan waqti muddo yar oo kooban oo developmentska ugu dambeeyay ama waxyaalaha ugu dambeeyay ee jabhadda iyo wada hadal la socday iyo haddii allaba ku rooyay inta ayaad si kooban noogu soo koobaysaa dabadeedna waxaan ku weydiin doonaa haddii alla yari su'aalo aad baan idin salaamayaa salaamullaahi calaykum akhyaarta sharafta leh golahan Soomaaliyeed 1960 taariikh aad u qurux badan oo macno weyn u sameynaya dadka Soomaaliyeed ku qotomiseen qadiyada wadaadeen ku dheeraan maayo waa qadiyad Soomaalidu ay si fiican u taqaano oo kulligood saameeyay sidaa daraadeed intii ugu dambeysay ma wax ka oranaya intii ugu dambeysay wax ka dhahaya waxa weeye marxalad cusub oo halgankii wadaadeen galay intii fircoonkii malas la oran jiray uu baktiyay isbedel weyn baa geeska Afrika ka socda oo ogaadeen saameeya oo Ethiopia saameeya oo dadka Soomaaliyeed saameeya fircoonkaas intuu ka baxay gumaysiga Ethiopia hoos u dhac weyn baa ku yimid tariskiisa baa qaybsan TPLF baa qaybsan EPRDF baa qaybsan laba sano hadda sii maqan yahay oo xaalado adag bay ku jiraan doorashadiina waa mari laayihiin weli murashax kaliya waa ku heshiin laayihiin ninkan hadda ku meel gaarka ee joogana min xaga badan ku taagan maaha oo TPLF tooda ay taageersan tahay qolo yar oo koonfurtaaduna ka soo jeedaa oo walayta liyaado oo ku tireer dalka Ethiopia wax loogu yeero marka marxalad waxay maraysaa Ethiopia kolla Soomaaliya ay ciidan u dirayso inay lacag ku hesho ay doonaysaa marna waxay doonaysaa inay focus iyo diblomaasiyad iyo dhaqdhaqaaq ay ku heshay doonaysaa dawladda Ethiopia waxay Soomaaliya ciidanka u keenayso marka marxaladaas gumaysiga ku jira askartiisa ciidanka xirka labadii bilood u dambeysay 11 baylood baa baxsatay dalka Eritrea gashay afarna waxay galeen Suudaan todobana waxay galeen Kenya waxay isugu jiraan bayloodo iyo injineero ciidanka xirka marka burburkaas dawladda Ethiopia ku socdo dadka Soomaaliyeed xeewaal maaha marar badan waxaan ka dareena dadka Soomaaliyeed inay warbaahinta propagandada iyo xaqiiqada inay kala aqoon Soomaalidu propagandada Ethiopia idaacadaha Soomaali ku hadlay iyo TV-da Soomaali ku hadlay iyo asxaab Soomaaliya loo soo dhiibay keeda caadiga iyo inay maartay iyo garabbiga yar garabbiga Soomaaliya oo burbursan dawlad weyn ka jirin iyadana weli ma ayna burburin garabbigaas farqiga u dhaxeeya kaliya yaa weynaysiiyay Ethiopia laakiin xaqiiqatan gudaha way ka burburtay wadadii burburka ay cagta saartay waxaan isleenahay Ethiopia hadda waxay 10 sano ama caqdigan dikeedkana hadda aynu galay ma dhamaysanayso
waana arrin xaqiiqo oo madax badan oo abadsiinayaan oo axmaare iyo tikreed iyo oromo iyo kuwii guddiga ku jiray yaa isdiidan ku fakeraya qaarkood inay goostaan afgambi ka dhacay maalin dhawood waxaa la dilay laba sarkaal afgambi muxuu ahaaye lagu eedeeyey dhowr sarkaal baa la xidho laba kamid a maalin saddexaad baa la dilay xaaladaasay ku sugan tahay qaar ba hadda waxay wejisayaan madaha intii muxuu ahaaye ogol lahaa israacdo intii kalena ma garanaysa waa markii meles meesha ka baxay tigreed gacantooda ay ka baxay ogaadeen taliskuna gacantooda ka baxay marka halganka ogaadeenaya walaysiyada etoobiya raxda ka fuulay 20 sano u dambeeyey ee sumcadeeda diblomaasiga ahayd iyo ciidankeedii iyo dhaqaalaheedii hoos u dhigin weeyey waxyaabaha la ragaadiyey la dhaqaaqi lahayd kamid tahay sidaa daraaddeed waxaan dareenaynaa in halgankanagii mudihiisa soo dhow yahay shacabka soomaaliyeedna dib u soo noolaanayo jamhuuriyadda soomaaliya ay soo noqonayso midnimadii soomaaliya ay soo noqonayso dareenkii iyo noloshii wadaninimo iyo midnimo iyo siyaasadeeda dhaqaale ee dadka soomaaliyeed soo noqonayo yaan dareenaynaa halganka ogaadeen iyana wuu adkaystay wuxuu leeyahay bulsho ballaaran oo dibadda joogta ka ballaaran oo gudaha ka taageersan ciidan adag urur dhisan iyo hoggaan adag oo ishaysta mabda iyo seetan adag wada xaq taariikhi ah iyo xaq qaanuuni ah taagan marka hadda wad la socotaana ku dheeraan maayo arrimahan wadahadallada u dambeeyeyna meelas baa cotay 2010 isagoo hawshii waduu ka dhintay 2 jeer horaa la arkay mar labaadkii iyagaa qasay wasaaradda gaashaamiga qabtay hadda ku jooga dowladda Itoobiya wasaaradda gaashaamiga doona ay jirtay baa wadahadalkii firdhiyey annagana dhinac guud bay nooga ahayd caalam badan baa xogaal u ahaa oo reer galbeeda oo Maraykan iyo Ingiriis iyo EU iyo Switzerland iyo qolo kale oo la talin iyo qolo UN iyo wax badan baa iyo xagga dana fadhiyey yes marka annaga aad wayna garanays Itoobiya intay caysantay oo hanjabtay bay shaki ka baxay marka ayada la raaciyay annaga soo noqon ku jiro hadda lagu soo qasbay oo maartay wada hadal waan ogolahay laga yeesiyay niman Kenya joogay oo marti aad ay afduubtay iyaga Kenya horta isku jira adduunkii kala ogaaday arrintaas marka xaalad way ku soo xumaanaysaa sumcadeeda diblomaasiga ayaa rifmaysa awoodeeda dhaqaalaha rifmaysa midnimadeeda daakiliga ayaa aad u rifantay gudahay hash ka tahay meelo badan bay muxuu ahaa iyo hoosaga dhacday xagga xuquuqinsaanka inuu madiga dhulkii ka qaadatay oo shirkado kale ka kireysay madaha yararka laangaarka laakiin ogaadeen iyo kale kusoo dhici weyne marka inahaas ayaa ka jira muxuu ahaa xaaladda Itoobiya iyo hadalkana waxaa la leeyahay adigu bilaha nagu soo socdayna furmaa laga yaabaa qolo dowladda Kenya iyo cidda taageeraysa hadda sida fushal ugu jira wixii ka soo kordhana waan arki doonaa anagu inaan ogolahay bayaan hadda ka hor waan kasoo saaray iyaguna hadda waan ogolaanay bay leeyihiin marka inay hadalka ballanka soo qabtaan taliyaha facilitatorka ah ama dhexdhexaadiyaasha Kenya cidda taageeraysa ayay ku xiran tahay goorey noqona weli lama xadiyo arrintaas halganka iyo guulihiisa military si fiican bay soo kordhayaan khilaafkii Itoobiya gudaheeda hoos buu soo degay jigjigu gaaray xaafad buu gaaray dad badan buu saalay oo jeelka laga sii daayay dad badan baa muxuu ahaay iyagana qaxay oo tuugtiibaa silaysay iyo dabaqoodiga jigjiga yaa kala qaxay waxna dibadaha u cararay waxna adibada qaxooti ku yahay beenkii iyo riwaayadii marka Itoobiya naftigeeda iyo cid u shaqayso yaa wada qaniisanayo waxaan inay cadaalad iyo dimuqraadiyad iyo shacabka rabitaankiisa inay dib nagan ugu noqoto mooyaane meel Itoobiya la yidhaahdo oo cirka ka soo dhacday oo la kala safari karin ma jirto waa dhamaatay si xayla salaasa markuu tagay adeerintooda daba tagtay ayaa markii la tagay ogaadeen inay daba tagaysaa taas waa xaqiiqa taariikhi weeye shacabkana inuu guddoonsaday iskawaheedina aan soo gaadhnay Itoobiyana ay ku qasbanaan doonto inay arrintaa liqdo marka waan ka baxaya arrimaha geeska Afrikana saas ay aragtaan maanta dowladda Soomaaliya kodamii hala bedelo laakiin way soo noqonaysaa Soomaali dowladda Turkiga ayaa u hagarbaxay wadamo badan baa la talinhaya xadawiyadii baa shilxadaada hore Itoobiyada keliya afarta isugu dhigtay rasaasta qodii marka uu ka dhamaadana inta rasaasta usoo dib jirtay qoladii u yar baa hangaritaagin arisaba ugu yeeri jirtay kolkii mashruuca salka loo dhigana ku kala ka jiro keeni jirtay
kolba soo daray iyo muxuu ahaayey dagaasi iyo bahashii kolba maarta shirkii nairobi lagu qabtay soo daray ka daba keentay shirkii qaahiro lagu qabtayna waxay ka daba keentay midkii la oran jiray mid soo dara tuuliyaal arrintii jabuutina waxay ka daba keentay indagaasi oo shainta soo dhex fadhiisatay meel kale iyo igaad iyo halkaa u dhex fadhiisatay marka waxay maalinba meel ku dabaqaba maanta soomaali waa la isugu yimi u baa dhex fadhiya maraykan baa dhex fadhiya ingiriis baa dhex fadhiya in la xaliyo oo burcadbadeed baa meel laga mara la waayo marka meel keliga etoobiya u xiri way noqon weyday marka dadka soomaaliya wax badan baa xilkifriyo u noqonaya insha allahu calanka soomaaliyana iyo midnimadoodan kor buu socdaa ka gumaysiga etoobiyana xogogaal aan idinku hadayo waxaan idinku ilaaway odaga mucaaradka etoobiya oo gudaha kuwa jooga iyo qaar dibadda u qaybsan kuwii dibadda kuwa badan baa midoobay dalal dibadda taageero ka helayo ciidamo haysta dalkan eritrea jooga aada u xoog badan xuduudahay far fadhiyaan midii ciidanka etoobiya dowr jabaadeed baa isu tegin xagga gudahana barashar siyaasi aba haysto oromana dabarkii ku xidhnaa wuu ka go-ay amxaaradana dabarkii ku xidhnaa wuu ka go-ay sida ay hadda kalisa gacanta tigreeg ugu sii jiri doono su-aal weyn wey maqori caaradii mataanjiray noqon hadday noqoto iyada daranta marka intaa mucaaradka inuu maanta door weyn leeyahay gaar ahaan dadka oromada oo inaga walaalahaan nahay aada bay usoo kaceen amxaarada oo ah tirada labaad ee ugu badan etoobiya tirada saddexaad waa soomaali laakiin soomaalidu uma qalanto inay daawarka saddexaad ka noqoto etoobiya ama dhaqdhaqaajiyaha saddexaad noqoto ama matoorka saddexaad ee etoobiya noqoto ama qofka saddexaad dhulkan xagga dhulkana waxaa weeyaan dalka labaad baa nahay oromaa in yar inaga weyn xagga tiradana ka saddexaad baa nahay dad badan oo soomaali ah ama soomaalida ogaadeen iyo jigjiga taagana in yara minority waxay isu haysaa inay yihiin minority yar oo in la adoonsado mudan qaar soomaali republic ku noolo jamhuuriyaddii soomaaliyeed iyo calankeedii ku hoos barbaarayna siweynidii iyo xorriyaddii uga noqday etoobiyana u haystaa inay dal weyn tahay isagana iyo soomaalida ay ogaadeen inay kolba farta muxuaha dhinaca loogu riixriixo inay mudan yihiin laakiin taariikhda geedka africa way isbedelaysaa dadkii soomaalida ama ha sheegto federaal ama qaryaalo jaad loo geliyo hal la sheego shacabka soomaaliyeed wuu bogsanayaa irsantayeerkaana akriyahaya duruufaha iyo axwaasha xadayada ku xeeran baa akriyaysa halkaa qiraacada ay oo laf akriyaysa waxaa weeye waxaynu gallay qarnigii soomaalida kor u socotay xadayadeedana hoos socdeen wabilahi tawfiiq waxay su-aalaya weydiisaan diyaar baan u ah aada baa umahadsan tahay afhayeenka oo nala cadaani hiirmooge intaanan su-aalaha arrimaha ethoobiya u gelin oo sida aada u sheegtay aada iyo aada u liita waxaa jira degmooyin ka tirsan ogaadeniya oo canfarta lagu wareejiyey arrintaas sidee bay dadka soomaalida ahee dhulka adega ay u arkeen oo gobolka la yidhaha shineela su-aashaas si kooban haddii aada uga jawaabi kartid sidaad u sheegtay weeye mudane sidaad u sheegtay weeye 3 degmo oo gobolka shineela oo waqooyi galbeed gobolka shineela ku yaala oo la kala yidhaahdo garmalo cadaytu ayaa lagu wareejiyey dadka canfarta haddii aad taariikhda akriyeysaan ama aad indhaha ku hayseen 20 sano u dambeeyey isbedelaha saameynta nagu laheed juquraafiga ee siyaasiga ama dhaqan dhaqaale ee dadka soomaaliyeed haddaad akriyeyseen markastoo etoobiya doorasho ku sheeg ay gashada package ama muxuu ahaay xidmo siyaasi ah oo dhuleed oo qaanuuni ah oo startup iyo ku geli jirtay labadii doorashada hadda 2005 iyo 2010 waxaa lagu galay dad Soomaaliyeed oo oromada la siiyey waxaad galataan muxuu ahaayey ilaa 2000 iyo 2000 ina dul badan la siiyey 2005 dul badan la siiyey 2010 qaybo kamid ah gobolka Mageele abaaleeyo kamid ah yaa loo xariiqay dadka dadweynaha kiftiga leh culayska leh
sidaas ay la dhaqantaa Ethiopia oo ay ka cabsanaysa cadaadiskooda oo ugu jira waxaa kaloo ay ka